dibadbax looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Farmaajo ayaa maanta ka dhacay magaalada Mugdisho ee caasimadda Somalia. Dibadbaxyadan ayaa waxay ka dhaceen inta u dhaxaysa isgoosida debka iyo siidka oo kaabiga ku ah xarunta madaxtooyada dalka Somalia. Dibadbaxyaasha ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid yihiin doonimeen doorasho qasab iyo kalgistarisnimo oo wada madaxweyne Farmaajo waa sida hadalka u dhigeen dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale waxay dalbadeen in aysan raali ka ahayn isla markaana aysan ogolaan doonin in dagaal ay ka dhacaan magaalada Mugdisho caasimadda Somalia isla markaana xukuumadda madaxweyne Farmaajo aysan u horseedin in dagaal sokeeye ay ka dhacaan caasimadda dalka Somalia. Shacabka ayaa ka dalbaday in madaxweyne Farmaajo gabi ahaanba iska casilo xilka madaxtinimada Somalia isla markaana oo xilka uu wareejiyo si nabada si aysan qallaasay gurin caasimadda dalka. Dibadbaxyaashan ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaadeen sida la sheegay xarunta madaxtooyada ee Somalia loogu armiyo ee Villa Somalia iyagoona boorarkoodu ay ku xadhinayeen sawirka madaxweynaha oo la saaray calaamada istilaabka taas oo u muuqatay in naxib ay u qabaan xukuumadda madaxweyne Farmaajo ee iminka ay soo ifbaxayso. Maalmihii ugu dambeeyay Mugdisho ayaa waxa ka gooxayay siyaasado iska soo horjeeda taas oo ay wadaan xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradka ka soo horjeeda. Haddaba dibadbaxyaasha maanta dibadbax ka hordhigayeen waaxiga madaxtooyada ayaa waxa hadalladooda ka mid ah afduubka lagu hayo handadaada boobka iyo doorasho xor iyo xalaal aan helno wax kale anaga uma socono dad nabadeedaan nahay shacabaan nahay Farmaajo fariinta u dirayna waxay tahay anuu ka shaqeeyo doorasho xor iyo xalaal guddiga been abuurka uu sameeyo Sigfaad Yaasiin waanay kala diraan ay sameeyeen guddi cadaalada hadday diidaan shacabku baabi'i doon dhibaato xamar ka dhacay ayaa laga rabaa haweenka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo wadanka dib u hadaad noo celisane adiga og ikhtiyaar adaa ma ahan markii ugu horeysay dibadbaxyo cinkani ay ka dhacaan magaalada Mugdisho caasimadda Somalia dhawaan ayay ahayd kadib markii dibadbaxyo rabshado watay ka dhaceen waqooyiga magaalada Mugdisho kaas oo loogu soo horjeeday madaxweynaha dowladda Somalia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasna ay ka dhalatay khasaare ba'an oo soo gaaray dadka shacabka ee dibadbax dhigayay. Mudooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda madaxweyne Farmaajo ayaa cadaadis xooggan ku kulmaysay mucaaradka sidoo weyn ugu soo horjeeda iyo shacabka qaar ee ku nool magaalada Mugdisho kuwaas oo dibadbaxyo ka dhana madaxweynaha ka dhigayay xaafado ka tirsan magaalada Mugdisho. sidoo kale waxaa xusid mudan in maalmihii ugu dambeeyay magaalada Mugdisho ay martigelisay dagaalo u dhaxeeya ciidamada booliska iyo militariga Somalia kaas oo ka dhacay waqooyiga Mugdisho. Isku soo wada dibadbaxyadan ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli wadanka uu ku jiro kala guur isla markaana guluf colaadeed amba siyaasad iska soo horjeeda ay ka taagan tahay magaalada Mugdisho kaas ay wadaan xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradka isbedel doonka ah ee ku sugan magaalada Mugdisho. Ismaaciil Bakar Bulshada Kasmaal TV Mugdisho.